إلهي وحان كبري قف والبق وقف من آذر الداوعة إنه أدونك أقرب إلهي كو داوعة أدونك أقرب إلهي كو تصو هدان ظلمنا صومالي وظلمنا أنا تيكا لو حيتري كدوب كاميرا مركز الشيء إن عن وجد وحي قبط ناقتي أنا إدوبي سي قبط لكن قبلها الصوماليات والله درين ملء ديك ملء أوس ملء يعني دنقشة ملء اللي عادة ما كبرتان هوين كما حاولتان اللي عادة ما كبرتان هوين كما حاولتان ميان هويين دارين inta aynu barnaamijka u gudagelin daawadayaal waxaan kaa codsanayaa inaad barnaamijka like saarto si uu u gaaro dad fara badan. Dhibana Saafi Caamir oo horey koox gangis ah ay u geysteen kufsigaasi loo geystana aan wax cadaalad u helin ayaa waxa iminka ka cabanaysa dhibaatooyin ka soo gaaraya bulshada Soomaalida qaarkood. Saafi Caamir ayaa koox gangisa oo uu hogaaminayay fanaanka Cabdullaahi Goof joog ay ugu geysteen xilli hore iyadoo da'yar. Hase yeeshee hadda waxa ay media u soo bandhigtay dhibaatadaasi. Dhibaatadii hore ugu soo dhacdo waxa uga daran dhibaatooyin kale ay kala kulmayso bulshada qaarkood. Bulshada Soomaaliyeed qofkii dib uu ku dhaco badana way qarsadaan sababtuna waxay tahay dhibaatadii hore ugu soo dhacda mid ka badan in ay gaarto taasoo ay wax badan qofku hadduu cudur ku dhaco haddii ay la soo kufsado haddii waxyaabo waaweyn ay ku dhacaan uu qarsanayo laga yaabo cudurkaasi xataa inuu dilo dhibaatadiisina uu cadaalad u heli waayo maadaama uu weerar kala kulmayo bulshada dhexdeeda. Saafi Caamir ayaa iyadu dhibaatadii haysatay banaanka soo dhigtay kana dacwootay oo ay soo sheegtay in fanaankaasi Cabdullaahi Goof uu dhibaato kufsi ah u geystay xilli hore asaga iyo koox uu hogaaminayo oo gangis ah. Hase yeeshee wax wara isaga lagama hayo oo kama una hadlin ilaa haddana wax cadaalada uma aynan helin arrinkaasi. Hase yeeshee sidaas ay tahay waxa ay mar walba dadka ay la nooshaa waa dad Soomaaliyeed oo xafladaha iyo meelaha la isugu yimaado ay mararka qaar dhibaato kala kulantaa. Dhibaatadii ugu dambeysay goor dhaweed ay qabsatay kol ay ka qayb galeysay xaflad halkaasi oo ay ka sheekeen doonto bal wixii kala soo gudboonaaday. waxaan rajeynayaa in aad daawadayaal si faafisiino bulsho badan aad la wadaagtiin. aniga maanta markii wax igu dhacaayeen ilmo yariisahan ahaa gurigaaga gabadha ku joogta ka soo qaad waa haystaa teenage oo maanta 17 galayso ilmay noo tahay ciyaal waa aniga ciyaalaan ahaa dhibaatada markii la igu sameeyay raggi aniga igu sameeyana waa nool yihiin adduunkay joogaan markaan dadkayga la soo hor fadhiistay oo dhibaatadayda sheegtayna ma ahayn inaan maaragtay ka filanayay in maaragtay ay nuxnux iyo si ciyaal suuqnimo iyo si dadban iyo si qaab daran ay ila dhaqmayaan ma ahayn mana ka filanay waxaan ka filanayay dad wax bartay fahmay qurbo 30 sano joogo adduunka sidii Soomaaliya loogu dhaqmayay aanan ugu dhaqmaynin oo maaragtay isbedelay oo ilbaxay aan u haystay marka warkii aan ku badinay caawa xaflad ayaan tagay xafladda aniga aan tagay gabar walaashay iga casuuntay khayr Allah siiyo maba rabo magaceeda in soo xafladda gabadha walaashay iga casuuntay ayaan tagay xafladii anigoo fadhiyo oo xafladii iska joogo aniga dadka maanta xafladaha tago ama aroosyada tago ama meelaha tago ma ihi aroos xataa hadaan tagaayo waa mid familkayga ama saaxiibadeeya ama eheladeyda qof meel walba taagan oo meel walba fadhido ama meel walba xaadirka ah maba ihiba markee noloshayda oo dhan qurba joogan iska ahay waxaan fahamsanahay wixii dan ii ah iyo waxaan dan ii ahayn waan kala aqaanaa alxamdulillah xafladda cawada markaan tagay xoogaa markaan fadhiyay gabadhii xafladda welcome ti loogu talagalay ayaa soo xaadirtay way imaatay gabadhii waa u tagay waa salaamay waan ka soo fadhiistay ilaahay amarkiis aniga waxaan ahay qof turuuma qaba
oo maanta dhibka yaraanteydii igu soo dhacay afagtadiisa aan weli ka raysaninaan ahay aan weli ka daawoobin oon weli aan ka helin walaal saacido ama ehel ha noqoto ama qaraabo ha noqoto ama cid walbo xanuunka kaligay ihaya marka anoo iska fadhiyo ayaa waxaa la daaray xataa heesta hadday hid ahaa lahayd oo maanta la dhihi lahay xafladaha laga daaraa ama maaragtay dadka dhanaa daarto waxayba ahaa lahayd wax kale ama heesahan gabdhahan cusub ay qaadayaan iyo wiilashan cusub iyo waa la gartay anoo iska fadhiyo ilaahay amarkiis qadarta way qorneyd heestii ninkii cabdulaahi goofjoog ahay ayaa la daaray xafladii ilaahay amarkiis waxaan u maleeyay anigiya waxaan noqdaba qof nooc kale waxaan leeyahay waxa yeeraay ilaahay amarkiis gabadhii xafladda welcome-ta loo sameynayay ayaan ag istaagay marka video waa gabar duubaysay videoga aniga inuu socdo ma ogeyn ilaahay iga sareeyo waxay iga ahayd caadi anigoo heestii iska dhigaya qof acting sameynaya gabadhii waxaan ku dhahay balaaya qabihi soo kufsaday heestiisay nagu daareen ilaahay amarkiis videogii ay duubaysay hadalkayga dhex galay anigana ilaahay i maqlaayo qof weynaan ahay cimrigaanaan jiraa wallaahi video in la duubayo ma ogeyn waa isdhagoolay waxaan siri maadaama videoga aad ku dhex dhacday oo videogii aad dhexda kaga jirto walba reer magaal iska dhignaata konashuuta muqdisho waa tahay qof reer baadiya ma tiide isdabci kursigaygan ku laabtay kursigayga anoo ku fadhiya laba naag dhinacayga fadhiyaan labadii naag waa midii duubaysa markii hore waxay soo maqashay hadalkayga laakiin aniga maanta gabdhaha walaalahay inta taqaanaaba badan intaan aqoonina iska yar ilaahay amarkiis ma agti gareeyo mana raba inaan muslimka ka socnaado oo aan noqdo qof different markaa meelaha aan tagayo gabdhihii labadii naag ag fadhiyeen midda kale intay qaran joofatay baadiimanka imaan yaa rasuulullah waxay tiri iidoon kuu jeedin kaamirada ka duub ilaahay amarkiis kaamira hadaa iga duubatid waxaa dhihi kartaa abaay saafisee tahay how are you isbarano kaala isku kaa sawiree kan video isii yacni si ilbaxnimo leh si aqli ah si dadnimo leh si dareen leh aa ii duubi kartaa si reer baadiyaha inta isku qaran juufteen tii kale waxay tiri ka duub kaamirada markaas ishayda dhinacaan u jeedaa waxay qabata naagtii aniga iduubaysay qabata anigoo ciilkii la fadhiyo oo ninkii qurunka ahaa heestiisa madaxayga ay sidii turuuma camal ugu noqonayso oo saan u fadhiyay naagtaanoo iduubaysaan arkay xanuunkii ihayaan kala kordhacay maanta ani gabar walaashay waay hadday i duubto iyo hadday i sawirto iyo hadday wax kasta samayso big deal ma aha laakiin gabdhaha soomaaliyeed wallaahi dareen male dhiig male uus male yacni danqasha male faham male yacni waa dad yacni ayaga dhan aaba turuumaysan oo dad turuumo ah oo noloshaba turuumo ku nool laakiin الحمد لله رب العالمين وإداوي كرين عاوة وحدعي كرتي حنونك يقصو كعي والله إنا نقبل ناس أمدله أمدقره وأنا قلباتي إتماض ومانت المهيج يقرقي المانت أما أنا حبسك قليلها يعني وإيد دويد إنا موجي هذا لبا كأيقو وحبي إيجا محيجين قف إيجا حكتب ملئ وانا كسجن جاري إنا كسمايه xafladii gabadhii masaakiintii ahayd ee welcome-ta loo sameynayay ee walaasheen ahayd waxaan isiri intaaba heerkan kula gaartay oga bax xafladda bannaankaaga gurigaaga u laabo maalin kale allah ku gaarsiiyo qofkaa la kulmays la kulan laakiin waxaa idiin sheegaa xanuunkayga iyo maaragtay dareenkayga naag soomaaliyeed ma fahmi karto naag soomaaliyeed waa xayawaan naag soomaaliyeed waa xan iyo xasaro iyo xaasidnima ifka loo keenay maanta waxaasoo dhan markaan dhahayo waxaan fiiriyaa bicture dheeraan fiiriyaa waxaan fiiriyaa dalkeenaan fiiriyaa dadkeenaan fiiriyaa dad jira ma aha dad adduunyada loogu talagalay ma aha dad fahmi karo truumo ama lifeka wuxuu micnaha uu leeyahay ma aha I'm very sad wallaahi naagahaas reer baadiyaasha oo cawada i helay
يعني very sad aan ka ahay mana ogeyn marka accidentiga cajalada duubneed anigana waxay ii qaateen ba hadalka aan sheegayo inaan ama istuska wado ama aan maaragtay ugu dan leeyahay inaan maaragtay ka wado istus aniga istuska ma wadi adduunyada ninkaasaan u nacbahay iyo la socdo iyo wixii wax u ah iyo wixii qaraabo la ah iyo wuxuu dhalay iyo eheladiisa adduunyada ilaahay dadkaasaan u nacabahay laygagama cadgoynin laygagama aarin laygagama qabsanin maaragtay ifka ugu cadibanahay ilaahayna waxaan ka baryay maalin inuu ilaahay soo saaro ifka korkiisa kuwaas oo rabbigay igaga aaro aan rajeynaa dulli waaye hana la yaabina kufsado kasta waa joogaa adduunka kufsado kasta waa joogaa maxama xooshaan nool kuwii la dhihi jiray waxbay kufsadeen oo dhanaa nool naaga aroosay caruur dhalay adduunka ku nool naag soomaaliyeed adduunkay ciil ku qabtaa kuwa kaloon maanta dhibaatadayda dareemi karinne waxay noqdeen reer baadiyay noqdeen very sad wallaahi aniga badow ma ihi aniga waxaan ku dhashay muqdisho waana la ii yaqaan noloshaydana badow ma naqanin reer baadiyana ma naqanin mana naqanayo noloshayda badow markee waxaan fahamsanahay ixtiraamka insaannimada walaaltinimada dadnimada laakiin dadnimaday kaa qaadayaan say u dhaqmayaan reer baadiyanimaday u dhaqmayaan bal maanta DJ waaye ani iyaguma dan lahayn allahu aclam laakiin ani DJ uma tegin maxaa u daarta ma dhihin laakiin dareenkayga aniga anaa iskale dareenkayga ilaahay waxaan ka baryay inuu Soomaali wax fahamsiiyo oo maanta ka dhigo dad garaad iyo aqli leh aniga caafimaad ilaahay waa isii alxamdulilah waa noolahay haddaan noolahay oon owlaad haysto oon guri haysto oo maanta alxamdulilah aan ahay noloshayda inaan wax soo kordhiyey maahan waxba ma dhimaayo aniga laakiin qashinka cawada aan arkay oo kalaa dadka ku jiro wallaahi qashinkaas oo kalaa ku jiro dadka very sad qashin waa laakiin alxamdulilaahi rabbilcaalamiin inaan maaragtay fahamkayga oo badan yahay aada oga xumahay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin haddaa maanta qof qabiil ahay waxaan u malaynaa in dad badan isbaran lahay laakiin qof warbaha ku raago way aragnimo badan lahaan ahay ma ihi qabiilista mana naqa kari noloshayda haddaa xataa iga aragtiin anoo samaynayo ma naqa kari markii aniga waxaan ahay ilmahaygii aniga different maanta qolo kastaa gurigayga ku jirto waxaan iska ahay dhaag federaal ah oo nooc walba qabiil soomaaliyeed haysato alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaaha ii qadaray laakiin ogaada naagaha reer baadiyaal waay badow waay laakiin alxamdulilah ima dhaawici karaan jinina ilaahay iguma rido mana waalni ilaahayna ima waalo laakiin dareenkayga ayaa caawo isbedelay maxaa igeeya meeshaas haddaa ogaha ma tegi lahayn alxamdulilah shukr lilah ma tegi lahayn haddaa oga in maanta ninkaas heesiisa laga daarayo haddaan ogaha ma tegi lahayn mana aadi lahayn weliba caawa haddaanan dad dhaawicin alxamdulilah ilaahay waxaan ka baryay qof walba oo qof bini aadana dhaawacayo inuu adduunka iyo aakhiraba ilaahay ku dhaawaco adduunka iyo aakhiraba ilaahay ku taso haddaan dulmanahay soomaali waa u dulmana aniga laakiin alxamdulilaahi rabbilcaalamiin alxamdulilah marka walaalahay